madaxweyne kasta oo Afrika waxa uu u baahan yahay inuu sugo ammaankiisa gaar ahaan marka uu dhaqdhaqaaq u sameynayo ama uu safrayo. Warbixintan waxaynu ku qaadanaynaa 10ka madaxweyne ee Afrika ugu ilaalada badan. Kaalinta 10aad waxaa galay madaxweynaha dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. 9aad waxaa noqday madaxweynaha Cameroon Paul Biya. 8aad waxaa noqday ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Lambarka 7aad waxaa ka soo muuqday madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Lambarka 6aad waxaa ka soo muuqday madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. Lambarka 5aad waxaa ka soo muuqday madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli. Lambarka 4aad waxaa ka soo muuqday madaxweynaha Ghana Nana Akufo-Addo. Lambarka 3aad waxaa ka soo muuqday madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari. Lambarka 2aad waxaa ka soo muuqday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, halka lambarka 1aad uu noqday madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa.